wafdi ballaaran ayaa inooga yimi jamhuuriyadda Somaliland oo aan jecelahay inaynu ku soo dhaweyno Heathrow Airport iyadoo halkan ay jaaliyadii reer Somaliland iyo safaaraddeeni jamhuuriyadda Somaliland oo hogaaminayo safiirkii Cabdilaahi Dayaxweer iyo dhammaanba jaaliyadu ay ku soo dhaweynayaan wafdi inooga timi jamhuuriyadda Somaliland inagoo wafdi kale isugu doona balse xildhibaan Cabdilqaadir ayaa inala jooga waxayna la joogtaa la taliyaha golaha guurtida iyaduna Faadma Saciid oo jecelahay dhamaantoodba inaynu ku soo dhaweyno Heathrow Airport waxaan jecelahay inaan siiyo kelmadda ugu horeysa safiirka jamhuuriyadda Somaliland oo fadhiya dalkan UK oo ku soo dhaweynaya Heathrow Airport wafdigan aynu maanta soo dhaweynayno soo dhaw safiir bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore ilaahay baa mahadi leh xildhibaan Cabdilqaadir Maxamed Xasan iyo Faadima Saciid waxaanu leenahay ku soo dhawaada UK ku soo dhawaada Heathrow Airport London waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa howlwadeennada safaaradda community-ga oo ka kala yimi ilaa Bristol ka kala yimi ilaa Belgium uu ka yimi Amiin oo kale uu ka yimi ilaa Belgium aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa wayna iswareysan doonaa wayna garaysaa way iska daalantihiin marka hore ku soo dhawaada London aad baan wal Faadma ku soo dhaweynaya inaad kelmadda tiraahdo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka ugu horeysa jaaliyada Somaliland ee London ama UK iyo safiirkeena qaaliga ah Cabdilaahi Europe walaashay oo maxahayd mar kastaba waxa weeyaan safaaraddeenu waxa weeyaan safaaradda maalin kasta iyo habeen kastaba u heegana sidii ay u horumarin lahayd qadiyada Somaliland waxaana la joogtaa ayaan waxaana la jooga daari tukaale Maxamuud Boos kulli kamaal waxa weeyaan safaaraddeena Somaliland waxa weeyaan safaarad aad iyo aad u qiimo badan waa safaaradaha ugu waaweyn ee ugu waxqabadka badan Somaliland haddaan in yar maxahaydaan ka sheego in safarkaygu wuxuu daaran yahay safaradii kale ee hore ee aanu nimi dawladda Ingiriiska iyo baarlamaanka iyo House of Lords ka aanu maxahayd u imanaynay maanta laakiin waxa weeyaan mid ka sii weyn maalinta kale bay dootana oo maxahaydin xiriirkaygu sii xoogeysanaya oo sii fiicnaanaya marka anigoona xoog u sii dhexgelin waxa weeyaan maxahaydin si rasmi ah la noo marti qaaday bismillaahir rahmaanir rahiim safaaradda ama safaaradii kala dambeeyay baan dhaahday oo halkan jooga Yurub boos safaaraddoona waa israacinaya jaaliyadana waa israacinaya hadday Bristol ka yimaadeen hadday Belgium ka yimaadeen hadday London ka yimaadeen hadday Cardiff ka yimaadeen iyo hadday meel kasta ka yimaadeen waxaan leeyahay waanu dhownahay aad iyo aadna waa u mahadsantihiin way ka duwan yahay safarkayaga safaradii hore government bay u badan yihiin waxba sheekayn mayno anaga safaaradda programkii haysa iyadana hogaaminaysa appointmentadii iyo waqtigii oo dhan haysa hadhow baynu xaragoon doonaa wafti qiimo weyn ugu leh oo ka socda golaha guutida Somaliland oo ay yihiin xogayaha arrimaha dibadda ama muxuu ahaa la taliyaha arrimaha dibadda ee golaha guutida Faadma Saciid iyo xildhibaan Cabdilqaadir indho oo labada baalanahay ku soo dhawaada UK bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ka soo boqolay waa Bristol anaga iyo qolo badan oo halkaas soo taagan oo qostaysa waxaanu u nimid inaanu soo dhaweyno guddoon xildhibaankeena weyn ee Cabdilqaadir indho iyo Faadma Saciid oo cid walba ii garanayso iyadoo la taliyihii arrimaha dibadda ee guurtida waxaan leeyahay ku soo dhawaada qalbi furan baan idinku soo dhaweynaynaa waanaynu kala war qaadan doonaa waanaynu soo iman doonaa
aad iyo aad baan idin soo dhaweynaa qalbi furan baan idinku soo dhaweynaynaa soo dhawaada waxaan maanta halkan ku soo dhaweynaynaa xildhibaankeenii weynaa cabdiqaadir indho oo aan uga imiday meel fog iyo Faadimo Siciid iyo wafdi kale oo ka dambeeya waxaan runtii hadalkayga dib baan ka dhigan doonaa insha Allah tacaala waxaan halkaa uga imiday waa jacayl qarannimada Soomaaliland waxa weeyaan in aynu soo dhaweyno oo aynu reer London iyo dhammaan reer UK aynu u soo baxnay insha Allah tacaala waanad mahadsantiin TV-ga qaranka Soomaaliland waxaan halkan maanta ku soo dhaweynaynaa cabdiqaadir indho oo inooga yimid Ingiriiska inooga yimid London magaalada London xalay walaal ku soo dhawaan leeyahay marka dhamaantii waa idin salaamayaa martina waan soo dhaweynaynaa dad fara badan baa inoo imanaya maanta oo maalin taariikh lahayd aad walaal mahadsantidiin xildhibaanada soo dhaweynaa Bismillaahi Raxmaani Raxiim magacaygu waa Shucayb Daahir Yuusuf aniga oo kamid ah jaaliyada Soomaaliland ee UK ku dhaqan oo runtii soo dhaweynayna wafdi ballaaran oo ka yimid wadankii hooyo oo leenahay gacmo furan ku soo dhaweynayno oo ay kamid ahaayeen xildhibaan indho iyo Faadimo Siciid runtii jaaliyada Soomaaliland uma kala harin sidii deena lagu yaqaanay si gacmo furan ayaan ku soo dhaweynay Awi Cismaan Ducaale TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland London